dhammaanteen waxaan isticmaalnaa passwords kala duwan oo aynu u isticmaalno meelo kala duwan sida hadday noqoto social media-heennaba sida Facebook-ga, Instagram-ka, Snapchat-ka, TikTok-ga iyo kuwa kale la halmaalaba. Waxa soo kale markii qaarkood aynu isticmaalnaa inaynu ku xidhno password noo gaara mobileskeena amba laptopnada isticmaalnaba. Xagga soo kale markii qaarkood aynu isticmaalnaba wireless-ka isticmaalno. Haddaba waxaa jira passwords common ah amba caan ah kuwaasi oo caalamka marka ay noqoto dad aad u fara badan ay isticmaalaan. Haddaba muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa maanta 10 password ee loogu isticmaalka badan yahay sanadkan 2021. Waxaan soo ka rajaynayaa muuqaalkan inaad dhammaysan doonto. Laga yaabo inuu ku jiro 10 password mid ka mid ah passwordada aad isticmaasho ee aad ku isticmaasho meelaha kala duwan ee laga baahdo inaad geliso password. Passwordka koowaad ee caalamka markay noqoto sanadkan 2021 loogu isticmaalka badan yahay ayaa waxa uu yahay waa passwordka ah 1 2 3 4 5 ilaa 6 laga gaaray. waana runtii password aad u fudud kaasoo laga yaabo qofka hadduu israa ku eeg inuu si fudud u garan karo. Passwordka labaad ee isagana caalamka loogu isticmaalka badan yahay sanadkan 2021 ayaa waxa uu yahay waa inaad ka dhigto passwordkaaga numberka 1 2 3 ilaa laga gaarayo 9. Passwordka saddexaad ee caalamka loogu isticmaalka badan yahay sanadkan 2021 ayaa waxa uu yahay waa inaad ka dhigto passwordkaaga xarfahan ku muuqda oo ah QWERTY. waxaa dhici karta markaad saa u eegto inuu kula muuqdo passwordkani password aan inta badan la wadaagi garanayn. laakiin bal waxaad samaysaa keyboardka mobilkaaga marka aad tagto caadiga mobilkaaga wuxuu ka samaysan yahay qaybta keyboardka markay noqoto 3 qaybood oo kala hooseeya. bal qaybta koowaad ee ka bilaabmaysa Q-da amba xarafka qa waxaad eegtaa 5 xaraf ee ugu horeeya. waxaa ku soo bixi doona in passwordkani uu yahay passwordkan iminka aynu sheegnay ee ahaa passwordka saddexaad ee caalamka loogu isticmaalka badan yahay sanadkan 2021. passwordka afraad ee isagana caalamka loogu isticmaalka badan yahay ayaa waxa uu yahay waa inaad kaba dhigato passwordka aad gashanayso meel adiga ku gaar ah kelmadda ah password. passwordka shanaad ee isagana caalamka loogu isticmaalka badan yahay amba la wadaago ayaa waxa uu yahay waa inaad ka dhigato passwordkaaga numberanta ah 1 2 3 4 ilaa laga gaarayo 5. ka lixaad ee isagana caalamka loogu isticmaalka badan yahay uu yahay inaad ka dhigato passwordkaaga inta soo qaato numberka 1 kadib xarafka ku beegan ee Q-ga aad ku xigsiiso kadibna aad soo qaato xarafka 2 kadib aad ku xigsiiso xarafka W ee ku beegan haddana aad soo qaato 3 kadib aad ku xigsiiso xarafka E ee ku beegan. passwordka toddobaad ee isagana caalamka loo isticmaalo amba loogu wadaaga badan yahay ayaa waxa uu yahay waa inaad soo qaato keyboardkaaga xarfiyeenu soo sheegi jirnay ee ugu horeeya ama 5 xaraf ee ugu horeeya keyboardkaaga qaybta sare kadib xagga dambe aad ka sii raaciso tirada ah 1 2 3. passwordka sideedaad ee caalamka loogu isticmaalka badan yahay uu yahay inaad ka dhigato passwordkaaga 1 2 3 ilaa laga gaarayo lambar 8 amba 8. passwordka sagaalaad ee caalamka loogu isticmaalka badan yahay amba loogu wadaaga badan yahay uu yahay inaad ka dhigato passwordkaaga 61. passwordka ugu dambeeya ee kaalinta tobnaad ku jira ee caalamka loogu isticmaalka badan yahay ayaa waxa uu yahay waa inaad ka dhigato passwordkaaga nambarada isku xiga ee ah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kadib aad ugu dambaysiiso 0. haddaba daawada kuwaas waxa ay 10 password ee caalamka loogu isticmaalka badan yahay sanadkan aynu ku jirno ee 2021. haddaba adigani daawanaya 10 password aynu soo sheegnay mid ka mid ah ma isticmaasho waxaad nagula wadaagi doontaa faallada qaybta commentiga.